Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kusoo dhawaada channelkayga Maria Teaching Channel. Waxaan weli ku jirnaa cashirkeenii noo socday unitkii 6 A oo buugga Abir Istanbul. Buugga koowaad insha Allah grammarkan unitka ugu dambeeya ku jirnaa. Waxaan bilaabeynaa insha Allah IQ-ga arda badan ay ka soo codsadeen. Waa ka faa'iidi doontaa insha Allah IQ waan bilaabaa qaybta grammarka. cashirka kale sii soo noogu soconaya maanta waa axad maalinta grammarkaan soo geli jira ama dalbilgisaha marka kalka hore waxaan soo qaadanay kuwan isim tamamlari la dhaho ama non complements la dhaho marka ciwaankooda maxay ahayd birleti isim tamamlamasi birletili marka waa isim maxaan qaadanay labadan group marna kuwan lagu dhamaystiraayo laba isim lagu daro kuwan iyo isim kale oo lagu daro kuwan then qaybtan oo ku xiran tahay macnaha markaas ficilka aa isticmaalaysid so marka qaybtan waa sameynay qaybtan ku xigta maxaa la dhahaa bilertesis isim tamamlamasi ayagana la dhahaa ama English waxaa la dhahaa indefinite nouns kuwan kore waxaa indefinite nouns kuwan indefinite nouns la dhahaa laakiin waxay iskaga mid yihiin markasta qaybtan iyo qaybtan iyo waxaan loo isticmaalaa ujunji taakilkishi micnaha third pronoun person dad waxaa la dhahaa third pronoun and like marka ben aniga sen adiga oo aa loo isticmaalaa marka oo ayada ama asaga u badan yihiin ayagoo si ama i lagu dhamaystiraayo so marka sidaas ayay ku xiran tahay like example maxay u badan yihiin laba isim oo isku dhagan laba magac like toothbrush waa cadaga ilkaha lagu cadaysay toothbrush Turkish waxaa la dhahaa dish fırçası and like marcipan çorbası macnaha waxyaaba isku dhagan laba isim oo aan kala harin oo badan yihiin guneesh waxaa la dhahaa qoraxda gooslugna ookiyaalaha la dhahaa labada marka lasku qabto maxay noqonayaan guneesh gooslug macnaha ookiyaalaha qoraxda loo xirto so magacyadaasaa loo isticmaalaa marka meeshan ayaga maxay ka yihiin isim haddana isim kala qoraysaa waa laba isim hadda like guneesh isimkaana noqonaya gooslug waa isku dhagan yihiin isimkan kaloo noqonaya kadib kuwaana ku dareena haddana kuwaana ku dareena just inta bis ku kala bedelan yihiin kii hore kan meeshan bisa kan waxba lagu dareynay maadaama guneesh gooslug ay isla socdaan marka I hope ina ay fahanteen orneg ay maanana qaybta tusaalaha marka qaybta kale marka example-ka koowaad ama tusaalaha koowaad yeni bir güneş yeni waa cusub yeni bir güneş gooslun almak istiyorum waxaan rabaa inaan iibsado ookiyaalaha qoraxda oo cusub so güneş waa qorax marka keligeed la dhaho gooslug ama goosluna waa ookiyaala ayaa la dhahaa laakiin marka laisku qabto maxay noqonayaan ookiyaalaha qoraxda marka isimada waxay ku saabsan yihiin labo magac oo isla socda aan kala haraynin marka la isku dhajiyo macno kala yeelanaya laakiin hadda laba macno ay kala lahayn marka la isku dhajiyo hal macno yeeshaan hadda marka yeni waa wax cusub bir güneş goosluu maxaa looga dhigay halkan yumshag yaa laga dhigay k then waa lagu daray marka waa inta somaha goosluu güneştan sideeda mala bedelaya güneş goosluu so inta uma ana baahan inta waxay ku xiran tahay markaas ficilka isticmaalaysid goosluu almagstiin waxaan rabaa inaan iibsado ookiyaalaha qoraxda oo cusub ayaan rabaa inaan iibsado ben aniga kan labaad ben aniga Istanbul University marka Istanbul University ma kala halayn Soomaali jaamacadda Istanbul magaceeda jaamacadda Istanbul so like Brandel University ma kala hartay Brandel waa magacii University waa jaamacadda waa sidaas Istanbul University marka ben aniga Istanbul University waxay ku ekeed university sidan inta ay imaanaysaa marka ayaa u dambeysay maxay noqonaysaa c aa lagu daray c iyo aan ku darnay c noqotay then waan akhristaa xagee akhristaa ku yuuran jaamacadda gudaheeda ayaan akhristaa so waa inaan ku darnaa haddana kan ne kadibna da ama de waxay ku xiran tahay markasta micnaha shaqalka isticmaalaysid waa soo qaadan shaqalada oo ahaay kalin iyo inji haddii iyo uu intaan dhibcaha leh shaqalada leh haddii inta dhibcaha oo shaqal kale haddii oo ku jirto waa de ama den oo ay isticmaalayaan
haddii ay yihiin kuwa aan dhibcaha lahayn oo kaliinka ahne daa ay isticmaalayaan. soo hadda maxay noqotay ficilka ayaa kan maxaa bedelay maxaa la shaqalkan iida ah marka meeshaan dee ay noqotay daa ma noqonaysa dee. soo university ay ahayd university sinde soo sinde ay noqonaysaa oo ku yaro waxaan akhristaa jaamacadda Istanbul. soo isimkii koowaad waa Istanbul, isimkii labaadna waa university, kadib kuwaan ku dhamaystirtay kuwaan I hope inay ila fahanteen. Salimin kol saati çok pahalı. Salimin kol saati çok pahalı. Salim saacadiisa gacanta waa aad ay qaali u tahay. Marka kol saati waxaa la dhahaa saacadda gacanta. Kol waa gacantii, saatna waa saacadii. soo marka la soo qabto maxay noqonaysaa kol saati saacadda gacanta. marka salimin kol marka kolkan inta marka salimin waa kuwii hore aan soo arkaynay. kol waa isimkan, saatna waa isimka dambe, saati ibisaan ku darsanaynaa maadaama oo shaqal u dambeynin. kol saati çok pahalı. Salim saacadda gacantiisa aad ay qaali u tahay. Haftaya isbuuca haftaya yeni bir çamaşır makinesi alıyoruz. yeni bir çamaşır makinesi waxaa lahaa makiinada alaabta lagu dhaqo. marka ma kala haraan labadooda. çamaşır makinesi waa çamaşır alaabta la dhahaa, makiinada waa makiinad marka makiinada alaabta. soo haftaya isbuucan hafta ayay ahayd haftaya isbuucan waa soo iibsanaya oo saas maa yeni bir çamaşır makinesi alıyorum. marka çamaşır waxay noqonaysaa isimkan hubinoo jeedin çamaşır waa isim, makinesi isimkii labaad, makiine ay ahayd makiine ee u dambaysa makiine, then si aa lagu daray makinesi, çamaşır makinesi alıyoruz. waxaan soo iibsanaynaa isbuucan makiinad cusub ee makiinada alaabta oo cusub aan soo iibsanaynaa. Çalışma masasına waa isimkan, masasına maadaama masi waa miis masa oo ah masi marka dhahdan lahaansho ayaa imaanaysa masasına. Çalışma masasına üstünde kitabın var. buugga çalışma masas waxaa la dhahaa miiska wax lagu aqristo. çalışma waa dadaal ama aqris, masana waa miis marka lasoo qabto maxay noqonayaan miiska wax lagu aqristo. soo çalışma masasına üstünde kitabın var. buugga miiska wax lagu aqristo üstünde waxaa la dhahaa korkiisa üstünde top üstünde marka üstü oo ahaa üstünde daada maxaa keenaysaa faartan üstünde kitaabin faar waxaa saaran buuggayga miiska wax lagu akhristo waxaa saaran buuggayga. oo sanifta fasalkaas bilgisyaar koorsunun oranjilaar var. waxaa joogaan ardada oo fasalkaas waxaa joogaan ardada kombyuutarka koorsada kombyuutarka dhigta. soo bilgisyaar waa isim, koorsunun koorso ay ahayd koorsada waxaa la dhahaa koorsada caadiga la barto minaha la ingiriis koorsaa jiro, carabi koorsaa jiro, soomaali koorska la dhigto. marka koorsunun orange var. fasalkaas waxaa jooga ardada kombyuutarka koorsada dhigta. marka sidaas ah inay fahanteen. waxaan ka shaqeynaynaa qaybtan unitkan su-aalahan qaybta shanaad. ashadagi boşluklar ashadagi waa kuwa hoos ku qoran, boşluklar meelahan babanaan, orneglar daki gibi sida ornegyadan koraan kusoo orneg waxaa la dhahaa tusaale ama misaalka. dool duralim aan u buuxbuuxino duldarmeg waa buuxin. soo marka maxaa isticmaalaynaa laba isim markasta laba isim maba kala haraanba. utu maza waa feerada dharka, miiska feerada. utu waa feero, masa waa miis. soo maxay noqonaysaa miiska feerada ama feerada miiskeeda. soo isim waa utugan, isimkan kalena waa kanaha maza. soo marka wixii ku darsamaya ku dareynaa ima ku darsamaysa sama ku darsamaysa maadaama maza uu yahay a u dambaysa maxaa ku darsamaya ana inta eed groupkan masasi noqonaysa soo maaha masasi utu masasi krik dakika dikkat it krik dikkat it.
then alif maxaan dhahnaa alif fatan ama watan fiidan w noo isticmaalaa fatan jedasine sinde oturuyor maadaama ay dhex degan tahay jedasi horta waa inaan ka dhigaa fatan jada ahayd somaha soo labada ahayd jada kadib maxaan ku darayaa jadasi kadib maadaama oturuyor ay dhex degan tahay idasinde oturuyor alif fetan jadasinde oturuyor waxay dhex degan tahay wadada la dhaho maadaama wada magaceeda ay tahay fetan jadasinde oturuyor marka si aan ku daray magaci oo isimkii labaad then sinde waxaa ugu daray oo daadaan u isticmaalay oturuyor way dhex degan tahay meeshay degan tahay ismka koowaad waa fetan isimka labaad jadasi kadib maadaama dhex degan tahay jadasinde hubina ay la socotiin soo marka waxaa imaanaynaa kan lixaad ama alta buwag shamcaawa classic music concert gidiors waxaan u socnaa classic waa taqaanaa waa wax oo classic like English classic very fantastic wax aad u wanaagsan classic music macnaha waa perfect so buwag sham maqribkan ama this evening classic music concert waxaa la dhahaa meesha bandhig faneedka muusiga lagu soo bandhigo bandhig faneedka la show caawi jiro kaleeto waa music concert so maadaama waa u socnaa somaha music concert marka music waa isimkii koowaad isimkii labaad waa concert kadib maxaan ku darayaa saa uma baahni ibisaan ku darayaa concert kadib waan u socdaa somaha neaa isticmaalaya aadan ama maadaama u socdo ficilkan oo gidiyorus ayaa bedelaya soo ficilkay ku xirantaa markasta marka maxaa soo qaadanaya music concert waxaa soo maaha music concert waxaa ku daray concert qaybta kuwaad waan ka baxsada oo isimka kuwaad waa music kii labaadna waa concert kii aan ku daray qaybtaas waa dhamaatay marka maadaama u socno concerne waa inaan dhahaa kuma dari karaan nooc dhaxmar ismaa concert gidiyorus marka ficilka ku xiranta waxaa isticmaalaysid waxyaabahana hore usoo qaadana aada cashir maxaa jira yunanmi durumal dhaho oo iyo dee iyo ye ku saabsan aan soo qaadana insha allah qofkii kaas oo si fiican usoo fahmana wuu fahmaya hadda meesha u socno soo music concerne gidiyor ama gidiyorus labadaba waa dhihi kartaa gidiyorus peace hadda gidiyor ma dhahay waa been gidiyorus soo waa sidaas yadi ama nambarka 7 kahwaaltida quraacda breakfast kahwaaltida meyve suu ijiyo quraacda waxaan ku cunaa meyve suu waxaa la dhahaa qudaarta cabitaanka qudaarta laga sameeyey lacaan boo kala shiiday waa meyve suu meyve waa fruitis marka cabitaanka oo fruitiska ama qudaarta laga sameeyey ayaa la dhahaa meyve suu haddii kale suu keligeed waa biyo meyvena waa qudaar laakiin marka suu qabto maxay noqonayaan meyve suu cabitaanka oo juuska oo qudaarta laga shiiday ijiyo magacaaba suu oo ahaa suu tamaha suu marka ma dhihi kari suu ma dhihi kari suuyu aan dhahay suuyu meyve suuyu suu meyve suu ahay suuyu ijiyo so maxaan dhahay marka kahawaaltida quraacda meyve suuyu ijiyo waxaan ku cabaa quraacda ama breakfastiga waxaan ku cabaa cabitaanka oo fruitiska laga sameeyay ama liin oo kala la miiray ama cambaa la shiiday everything waa meyve suu ijiyo meyve suuyu aan dhahay marka suuyu because suu haddaan dhaho macno kale ayaan neysaa soo suu ma isticmaali kari meeshaan yaa badalaa suuyu marka kii koowaad muxuu ahaa meyve waa isimkan suuyu waa isimka labaad then suu markasta u bisoo qaataa ya iyo u bisoo qaataa wax kala ma qaato dars kitaab rasmi jok rangle
darsiga buugga cashirka laga dhigo darsi kitaab waa buugga textbookga oo cashirka laga dhigo darsi kitaab hadda like cashirkan oo kale buuggaan ka qaadana soo waa darsi kitaabkeena waa kan darsi kitaab ku qoran waa buugga cashirka laga qaato rasmi waxaa la dhahaa resim waa picture resim chalk rangle aad ayuu wuxuu leeyahay midabyo chalk rangle waa midab miran buugga macnaha soo kitaab darsi kitaab waa inaan horta beedaan bedelaa soo maaha oo bida kale u bedelaa beeda kale oo hoos u jeeda then resmi chalk rangle marka maxay noqonayaan darsi buugga sawirkiisa marka inta lahaanshaha soo gelisay sawirkiisa chalk rangle maxaan dhahay kitaaba sidaan u bedelaya sidaan ahayd waxaan ku bedelayaa kitaabi darsi kitaabin maadaama lahaansho tahay darsi kitaabin so maadaama lahaansho yahay maxaan dhahayaa darsi marka iida hadda waxaan ku dara qaybta koowaad aan sameeyey hadda kadib lahaanshaha isticmaalaya marka kitaabin darsi kitaabinin micnaha buugga rasmiga ama pictureka yaa iskale darsi kitaabinin resimi marka iyo ku daraa isagana resimi darsi kitaabinin resimi marka darsi kitaabin resimin chalk rangle kaas ma ku darahay dimala waa fahmaynaa labadan bisa ahayd shaqadeena darsi kitaabinin resmi chalk rangle so waa darsi kitaabinin maadaama darsi kitaabinin resmi micnaha inaa lahaanshaha isticmaalno waxaa keenaa resmigan waxaa keenaysa pictureka sawirka oo darsi kitaabka sawirka yaa iskale darsi kitaabka soo darsi kitaabinin resmi inta iibisaan ku daraa resmi chalk rangle aad ayuu u kalar leeyahay rang waa kalar rangle wuu kalar leeyahay yatag oda waxaa la dhahaa qolka jiifka yatag oda like bedroom soo lama dhaho bedroom waa meesha qubeyska qolka jiifkana muxuu ahaa waaba ii gooyey marka qolka jiifka oo kaleeto ayaa maxaa la dhahaa yatag oda qolka jiifka marka maxaan dhahaa yatag odasi rang değiştirmek waxaan rabaa qolka jiifka kalarkiisa ama rinjigiisa inaan bedelo soo yatag odasi waa inaan ku daraa odasinin waxaa imaanaya rangiga iskale qolkan yatag odasinin rangi değiştirmek istiyorum waxaan rabaa qolka fadhiga kalarkiisa inaan bedelo qolka fadhiga ayaan kalarkiisa qolka jiifka sorry ayaan kalarkiisa ama rangigiisa ama kalarkiisa rinjigiisa inaan bedelaan rabaa marka maxaan dhahayaa markaan qoraayo qolka jiifka sumaha yatag oda waa jiifka oda si waan ka baxsada qaybtan si oda sinin waa inaan lahaanshaha haddana ku daraa sidan yatag waa isimka labaad waa oda sida waan isticmaala laakiin lahaanshaha rabaa inaan isticmaalo oda sinin rangi waa sumaha yimshaaga oo bedelaya rangini rangi yumshaagaan ka dhiga rangini waa inaan kusi daraa değiştirmek istiyorum yatag odasinin rangini değiştirmek istiyorum waxaan rabaa qolka jiifka rinjigiisa ama kalarkiisa değiştirmek istiyorum inaan bedelaan rabaa değiştirmek waa bedel istiyorumna waa rabaa soo değiştirmek istiyorum yas tatil waxaa la dhahaa xilliga fasaxa oo summer holidayda ayaa waxaa la dhahaa yas tatil yaska waa summer tatilna waa fasax ama holiday so yas tatil fasaxa oo tatilka ah oo yaska ah ama xilliga samarka ah Antalya gidiyorum waxaan u socdaa Antalya magaalo la dhaho ayaa u socdaa turki ka mid Antalya gidiyorum so meesha maxaa la gelinayaa waa isla socon yas tatilin isim koowaad waa yas tatilna waa kan so yas tatilin maadaama ay lee u dhamayso aan ku dareena haddana maxaan ka hadlaynaa yas tatilka dhexdeeda yas tatilinde haddana intaa isticmaalina tatilinde so yas tatilka waa summer holidayga yas tatil oo ahaa tatili aan ka dhigahay then isla holidaydan ka dhex hadlaya tatilinde
jag ska till Antalya gidiyorum waxaan u socdaa Antalya fasaxa oo summer holiday ama jag ska tillka waxaan u socdaa Antalya so jag ska till Antalya gidiyorum waxaan u socdaa magaalada Antalya ayaan u socdaa jag ska tillka marka qaybtaana insha Allah xoogaa way dheer tahay mar kale aan ku daraa cashirkeen nextiga ku darayaa dadka saacadaha way ka cabteen soo gaabi daqiiqadaha way dheer yihiin marka intaana kusoo gabagabeyna insha Allah inay sii wareeriyo mar rabo qaybtan kale waa iyadan inta lagu buuxinaa next time ka qaybtan then adiga p iyo j bisaan uga dhiman grammarka hadda kadib waan ka baxeena waa dhammaynayna insha Allah waxaan noo bilaabaya insha Allah buugga ikiga qaybta grammarka inii boobsiina isku dayaya because grammarka ama dilbigiisa ugu muhiimsan luqadada fahantid waxa kale jumlada adaa samaysan kartid waa ku mahadsantiin daawashadiina kan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar hadaa ka heshid like asxaabtaada la share garay wixii oo su-aal ama cashirka aan ka bedeli karo anaa ka bedeli rabtiin ama aan kusoo kordhiyo ama wixii qaladaada la talin ah hoos igu soo qoro commentiga insha Allah mahadsantiin waa idin salaamaya waa noo cashirkeena dambe asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kurishmeeg sare